haweeney Norweji ah oo 40 jir ah ayaa lagu soo oogay dacwad ah in ay tahriibinaysay maandooriyaha kokayiinka oo lagu qiyaasay in ka badan 20 kiilo. Haweeneydan ayaa maxkamad lagu soo taagi doonaa 24 bishan aynu ku jirno ee Juulaay, maxkamad ku taala magaalada Malmö ee dalkaasi Sweden. Haweeneyda ayaa markii hore inkirtay in ay wax darooga ah waday, ha yeeshee markii dambe ayay sheegtay in lagu qasbay in ay daroogadani tahriibiso, balse waxa ay sheegayaan waaxaha kastamka dalkaasi iyo baarayaashuba in haweeneydani miseejyada iyo fariimaha ay isdhaafsanayeen cidda ay daroogadan u waday ay ahaayeen si saaxiibtinimo ah iyo dad aqoon isku leh qaabka ay u wada hadlayeen ama fariimaha isu weydaarsanayeen. Haweeneydan ayaa lagu qabtay bishii February ee sanadkan aynu ku jirno iyada oo daroogadani tahriibinayso buundada caanka ah ee Öresund ee isku xirta wadamada Sweden iyo Denmark. Haweeneydan oo lagu qabtay 20 kiilo oo kokayiinta ah ayaa hadda maxkamadeedu waxa ay ka bilaabanaysaa magaalada Malmö ee dalkaasi Sweden. Waxa uuna kiiskeedu socon doonaa ilaa iyo in muddo ah taa oo go'aan laga gaari doono. Hantida lagu qarash gareeyay ama lagu qiimeeyo daroogadan ay haweeneydan tahriibinaysay ayaa gaarayso ilaa 18 milyan oo koronka dalkaasi Sweden ah. Halka ay wararka ugu doorkaroon idinkaga imaanayeen waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway. Waxaan idinla socodsiinayaa aniga oo ah Cabdullaahi Shiine.